soo dhawaada saaxiibayaal, waa Somali Med iyo mar kale. Maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay dhiig-yarida. Sida aynu ognahay, dhiiggeenu wuxuu ka kooban yahay unugyo dhiigeedyo iyo plasma. Unugyo dhiigeedyadu waxay u qaybsamaan 3 nooc. Nooc waxaa la yidhahdaa unugyada dhiigga cascas, noocna waxaa la yidhahdaa unugyada dhiigga cadcad, noocna waxaa la yidhahdaa unugyada xinjireyaasha ee dhiigga. Guud ahaan dhiigga guud waxay unugyadu uga dhigmaan 45%. Plasma oo iyadu 29% biyo ka kooban, 8 soo hartaana ay isugu jirto borotiinno, dux ama subag, milixyo kala duwan ama cusbooyin kala duwan sida sodiumka, potassiumka, chloride-yada, bicarbonate-yada, milixyada kala duwan ayay ka kooban tahay. Waxay kaloo ka kooban tahay metabolite-yo, waxay ka kooban tahay enzyme-yo, waxay ka kooban tahay hormoonno iyo vitamino iyo runtii qashin, xataa waxyaaba qashina oo aan manaafacaad u lahayn jirkeenna, laakiin nasiib wanaag ay kelyuhu inaga saaraan oo laga sifeeyo dhiigga. Marka plasma iyo unugyo ayuu dhiiggeenu ka kooban yahay. Unugyada waxaan sheegnay in 3 nooc ay yihiin. Marka la joogo anemia, anemiyada waxaa si gaara waxay si gaara xiriir ula leedahay anemiyadu nooc ka mid ah unugyadan 3 nooca ee aan soo sheegnay. 3 nooc unugyada dhiigga cadcadi waxay u dhigmaan ciidanka amniga iyo difaaca jidhka. Waxay la dagaalamaan wax kasta oo jidhka dhibaya oo soo gala, cudurku doona ha ahaado, xasaasiyad ha ahaado, cudurro kale ha ahaadaan oo cudurro waaweyn ha ahaadaan, ama xasaasiyad yar waxa markaa dhibsanaysa ahaadaan. Waa iyagu waxay la dagaalamaan mar walba wixii jidhka dhibaato u geysanaya ama jidhku dhib u arki karo. Unugyada cascas waxay xambaaraan ama jidhka gaarsiiyaan sahayda dhiigga ku jirta ayay gaarsiiyaan, khaasatan oxygen-ta u xambaaraan dhiigga, qashinkana way ka soo qaadaan. Waxaa ku jira hormoon la yidhaahdo protein la yidhahdo hemoglobin. Proteinkaasa marka shaqada ugu culus ee ay qabtaan unugyada dhiigga cascas u haya. Shaqada u qabtana waxa weeyaan, waa arki doonaa, waa in dhiigga la gaarsiiyo jirka oxygen ku filan, lagana soo qaado wixii mataqaanaa jirka dhibaya sida gaasaska kala duwan, carbon dioxide oo kale. Marka sawirkan haddii aad eegto waxaad arkaysaa halkan waxaa ku qoran dhiig fayow, halkan waxaa ku qoran dhiig yari. Macnaha waxa weeyaan halkan dhiig yari baa ka jirta dhiiggan, halkanna dhiiggu waa dhiig fayow oo aan dhibaata ka jirin. Maxay ku kala duwan yihiin labadan sawir? Waxay ku kala duwan yihiin marka la arko unugyada dhiigga cadcad ee aan soo sheegnay inay yihiin nooc ka mid ah 3 nooc ee unugyo dhiigeed ee dhiigu ka kooban yahay. Unugyadan cadcad waan sheegnay inay qaybta difaaca yihiin. Iyagu lambarkoodii halkan ay ku joogeen ayay halkan ku joogaan. Unugyada xinjireyaasha oo shaqadoodu tahay in marka dhaawac jirkeena soo gaaro ay ku yaacaan meesha dhaawacu ka dhacay oo ay qolof saaraan, ay ilaaliyaan inaan dhiigu bixin, isku day inay halkaa xiraan ay daboolaan. Iyagana tira ahaan intii ay ku joogaan ay sawirkan ku joogeen halkan ayay halkanna ku joogaan. Laakiin unugyada cascas farqi weyn baa u dhexeeya labada sawir. Sababta waxa weeyaan, halkan markii la joogo aad bay u fara badan yihiin, way ka badan yihiin kuwa kale. Unugyada kale markii labadooda la isku diro, kuwa cadcad iyo xinjireyaasha, labadaba waxaa ka fara badan, ka tira badan unugyada cascas. Laakiin halkan markii la joogo weli hadday doonaan ha ka fara bataan, laakiin dee aad bay uga yar yihiin tiradii ay halkan ku joogaan. taa macnaheedu waxa weeyaan qofkan dhiigyari ayaa haysa. Halkaa waxaad ka fahantay in unugyada sida tooska ah xiriirka olole dhiigyarida inay yihiin unugyada cascas ee aanay xiriir la lahayn unugyada cadcad iyo kuwa xinjireyaasha midna. Haddaba cashirkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay bal inaynu qeexno waxa ay tahay dhiigyaridu. Waxaan kaloo ka hadli doonaa noocyada dhiigyarida. Waxaan wax ka tilmaami doonaa sumadaha iyo astaamaha dhiigyarida. Sumadaha markaan leeyahay waxa weeyaan calaamadda jirka ka muuqanaysa ee adiga iyo dadka kaleba ay wada arki karaan.
astaamo markaan leenahayna waxa weeyaan waxa adigu aad ka cabanaysid tusaale ahaan bukaan ahaan hadduu qofku ku yidhaahdo anigu habeenkii ma seexdo maxaa la yidhahdaa dhuux shub baan leeyahay lafaha i xanuuna waxaa dee dhakhtarka iyo dadka kale kulama dareemi karaan waa astaamo adiga kuu gaara waa wax lagaa dhegeysan karo laakiin ma xaqiijin karno sidaa awgeed waxaan ku magacaabina waa astaamo waa sifooyin adigu aad sheegaysid sumadahana waxaan leenahay waa wax la wada arkayo tusaale ahaan inaan aragno in finan jirka kaaga yaalaan oo kale in gacmahaaga markii la eego ay cadcad yihiin yani ama nabarra ku yaalaan ama sidii la doonaya aanay ahayn ama waxyaalaha noocaas ama dhiigbaxoo kale inuu dhiig kaa muuqdo waxyaalahaasoo kale waa sumado weeyaan waa sumado kugu yaalla waxaan dul istaagi doonaa iyagana waxa sababa dhiigyarida maxaa sababa waxaan wax ka oran doonaa sida lagu ogaan karo dhiigyarida sidoo kale waxaan kusoo gabagabayn doonaa ugu dambeyn sida loo daweeyo dhiigyarida su-aasha koowaad waa maxay dhiigyaridu dhiigyarida waxaa lagu qeexaa qaabab kala duwan baa loo qeexaa laakiin kulli isku meel unbay isugu imanayaan qeexidda koowaad tusaale ahaan halkan waxaa la yidhi dhiigyaridu waa hoos u dhac ku yimaada awooddii unugyada dhiigga cas ay ku xambaari jireen oxygeenta yacni awooddoodii baa hoos u dhacaysa oo tabar uma yeelanayaan inay xambaaraan oxygeenta waan soo sheegnay inay oxygeenta ama neefta inay jirka gaarsiiyaan unugyada cascas haddii marka tiradoodii haddii awooddoodii hoos u dhacdo macnaheedu waxa weeyaan dee ma gudbin karaan oxygeenta ma gaarsiin karaan jirka taas waa qeexidda koowaad qeexidda labaad waxaa la leeyahay waa in unugyada cas ee dhiiggu ay ka yar yihiin tiradii la doonayey in ay jirka ku gaarsiiyaan oxygen ku filan halkana waxaan aragnay inay tiro ahaan hoos u dhaceen oo sidaa awgeed aanay awood u lahayn inay jirka gaarsiiyaan oxygen ku filan maadaama tiradoodii hoos u dhacday qeexidda saddexaad waxay leedahay dhiigyaridu waa hoos u dhac ku yimaada hemoglobin iyo hematocrit ama unugyada dhiigga ee cas saddexdan qeexitaan ee kala duwanba waxay ka midaysan yihiin hal shay oo ah marba haddii dhiigyari ay jirto waxay ka dhigan tahay dhiigyaridaasi ama aynu ku qeexi karnaa inagoo midaynayna qeexitaanadan saddexdaa ee kala duwan in unugyadii dhiigga ee cascasaa ay hoos u dhacday shaqadoodii tira ahaan ama taya ahaan yani unugyadii dhiigga ee casaa ayaa hoos u dhacay waxay hoos ugu dhaceen taya ahaan ama tira ahaan oo tira ahaan waxaa la sheegay halkan inay ka yar yihiin tusaale ahaan intii la doonayay inay jirka ku gaarsiiyaan oxygen ku filan halkana la sheegay in awooddoodii hoos u dhacday mar saddexaad waxaa la yidhi waa hoos u dhac ku yimaada hemoglobin ama hematocrit hemoglobinna waan sheegi doonaa wuxuu yahay waa maxay hemoglobin hemoglobintu waa brotiinka unugyada cascas ee dhiigga u xil saaran inuu xambaaro oxygeenta ama neefta hadba sidaa u taqaanid oo xubin walba ama unug walba oo jirkaaga ka mid ah halkiisa uu ugu geeyo oxygen si aysan u dhiman yacni xubin ka maarmaysa jirkeenna oxygen ama neef ma jirto sidaa awgeed brotiinka la yidhaahdo hemoglobin ayaa u xil saaran unugyada dhiigga cascas inuu oxygeenta unug walba halkiisa ugu geeyo shaqada kale oo qabta waxa weeyaan inuu ka soo saaro carbon dioxide-ka oo ah gaas yani jirkeenna sun ku ah haddii uu ku raago yani jirkeenna waa ku sun mar walba haddii ku raagi haddaanu ku raagin marka jirka waa laga saara yani waxaa ka saara oxygen baa la keenaa unugyadii baa qaata carbon dioxide baa ka dhasha waa la qaadaa marka waa laga dalaca jirka waa laga saara waa adiga neefsanaya markaa neefta jiidaysana oxygen baa qaadanaysaa iyo gaasas kale laakiin gudaha usii geli mayno marka neefta aad soo saaraysid oo sankaaga ama afkaaga neeftu ka soo baxaysana yani waxaad sii deynaysa waa sun waa gaas la yidhaahdo carbon oxide marka hemoglobinta ayaa u qaabilsan inay oxygenta jirka gaarsiiso carbon dioxide-kana ka soo qaado hematocrit maxaa looga jeedaa ilan qeexiddan saddexaad baa waxay ahayd dhiigyaridu waa hoos u dhac ku yimaada hemoglobin marka waan sheegnay waxay tahay iyo shaqaday qabato iyo hematocrit marka isagu waxa weeyaan waa saamiga waa xisaab yacni waa saamiga ay unugyada dhiigga casi ku leeyihiin tirada guud ee dhiigga
marka waxaa ogaanaysaa in yani hematocrit hadduu hoos u dhaco halkan waxaa ka ogaanaysaa in unugyadii dhiigga casaa saamigii ay ku lahaayeen dhiigga guud ay hoos uga dhaceen marka way isku meel bay imanaysaa yani noocyada dhiigyaradu haddaba imise nooc dhiigyari ayaa jirta aad bay u fara badan yihiin mararka qaarkood boqolaal baa la sheegaa dhowr boqol oo nooc laakiin innaga noocyada ugu muhiimsan baan ka hadlaynaa hadhowna mid mid ayaan dul istaagi doonaa waayo cashirkani waa hordhac marka nooca koowaad ee ka mida noocyada dhiigyarida waa dhiigyarida loo yaqaano dhiigyarida hoos u dhaca xadiidka ama birta waxaa la yidhahdaa iron deficiency anemia waxaa ka mid ah dhiigyarida dhiigbaxa yani dhiigyari ay keentay dhiigbaxa oo de qofka hadduu dhiig baxo waxaa ku dhici karta anemia sababta ugu dhici karta hadduu aad u dhiig baxo khaasatan tusaalahaan inay wax ku gooyaan mindi oo kale ama in hooyadu ay umusho oo kale ama inaa shil gashid oo kale ama in tusaale ahaan dhiiggii caadada dumarka yani mataqaana ku jira xilliga dhalmada oo kale xilmiga yani xilliga ay ilmo dhali karaan dhiigoo kale yani dhiigga caadadu haddii uu ka bato intii la doonayey oo tusaale ahaan 3 ilaa 5 casha lagu qiyaasaa inuu dhiigu socdo muddada uu dhiigu socdona waxaa lagu qiyaasaa ilaa 45 mililitir oo dhiiga inuu ka baxo marka haddii dhiigu intaa ka yaraado oo dee maalmo fara badan uu iska socdo soomaalida qaarkood dhabar furan bay yidhahdaan normalinaya marka haddii dhiigu ka bato muddo ahaan intii uu socon jiray oo 10 beri 7 beri yani dhowr iyo 10 beri 20 beri iska socdo dee waa dhiig bax weeyaan dhiigyari bay kuu keeni kartaa haddii aanu intiis yani muddadii 3 ilaa 5 casho caadiya uu ku joogsado laakiin 3 casho ama 5 casho uu xawli u socdana waa halis kale iyaduna oo dhiigyari keeni karta macnaheedu kama dhigna marba haddii 3 ilaa 5 beri uu dhiigu soconayay yani dhiig bax maaha haddii uu xawli u soconayaa waa dhiig bax heavy bleeding baa loo yaqaanaa marka dhiigbax noocu doon ahaan karaa wuxuu ahaan karaa dhiigbax ay boog caloolaad keentay tusaale ahaan qofka nabarada caloosha kule ama boog caloosha kule oo kale dee dhiig badan baa ka baxaya gudihiisa oo aan ogeyn yani nabarkii gudaha ku yaalay caloosha wuxuu sii deynaya ama mindhicirada wuxuu sii deynayaa dhiigaasna saxaraduu raacinaya kadibna waxa qofkii dhiig aan ogeyn baa ka baxaya hadhowna anemia tabar la-aan waxyaalo badan buu isku arkaya oo astaamihii anemiyada ka mid ah oo aan u geli doonaa astaamaha waxaa ka mid ah dhiigyarida nooca loo yaqaano dhiigyarida hoos u dhaca vitamin B12 ama vitamin B12 deficiency anemia waa dhiigyari ay keento inuu hoos u dhaco vitamin ka mid ah vitaminadaada oo qayb lixaad ka geysta samaynta unugyada dhiigga casaas unugyada dhiigga casaas waa u geli doonaa unugyadoo dhan dhiigga waxaa lagu sameeyaa dhuuxa lafaha ayaa lagu sameeyaa marka halkaasaa xarun u ah haddii marka ama birtu kaa maqan tahay ama maxaa la yidhahdaa vitamin B12 uu kaa maqan yahay iyo hormoono kale iyo vitamino kale iyo waxyaalo kaloo badan yani hadday kaa maqan yihiin yani waxay sababi kartaa in aanu dhuuxii samayn unugyo dhiig oo ku filan qofka taasna waxay sababaysaa yani in ay dhiigyari dhacdo noocyada kale dhiigyarida waxaa ka mid ah dhiigyarida ay keento cudurrada qaarkood yani cudurka la yidhahdo tusaale ahaan sickle cell waxaa loo yaqaanaa anemiyada noocana sickle cell anemia halkan waxaa arkaysaan unug case caafimaad qaba sidaan hoos ku qornay unug case caafimaad qaba aslan markuu unugga cas ee dhiiggu uu caafimaad qabo wuxuu leeyahay haykalkan sidan hadda uu samaysan yahay shakligan uu leeyahay kana lagu sifeeyaa mararka qaarkood yani marka dadka yani waxay garan karaan oo kale la tusayo yani keegaan oo kale siduu u samaysan yahay ayay u samaysan tahay ayuu u samaysan yahay unugga dhiigga cas marka sickle cell la leeyahay waa cudur la kala dhaxlo runtii oo ilmuhu ku dhashaan waxaad arkaysaa sickle waxaa la yihahdaa asal jafadan ama mindidan ama faashkan waxyaalaha noocaana ee beeraha loogu talagalay in lagu jafo ama lagu cawsgooyo ayaa loogu talagalay ayaa magac ahaan la yidhahdaa sickle marka cudurka markii loo magac bixinayay dee qof walba wuxuu ka hadlay dhaqankiisa ku salaysan tahay yani dhaqankiisa marka qoladii magaca u bixisay waxay ugu magac dareen jafadan ama shaygan aduu qalabkan loo isticmaalo beeraha
waayo isagaa si kala yirahdaa. Marka macnaheedu waxa weeyaan unuggii la rabay inuu sidaan u ekaado ayaa sidaan isu bedelay. cudurkani unuggii wuxuu ka dhigayaa mid aan flexible ahayn, oo yani mataqaanaa dhaqdhaqaaqiisii iyo xorriyadiisii aanay saxnayn. haykal ahaan iyo shakligiisina u isbedeleen, sida laanqayrtii oo kale, sida bil buu u samaysan yahay sida bishii oo kale, halka la doonayay inuu sidaan u samaysan. waxyaalaha kale ku kala duwan yahay waxaa ka mid ah yani unuggu markuu caafimaadka qabo oo sidaan u samaysan yahay, hadba xididka uu soo gelayo yani wuu la saayiraa, wuu la falgalaa. yani haddii xididku dhuuban yahay isaguna wuu isdhuubaa, haddii xididku uu ballaaran yahay isaguna wuu isballaariyaa, haddii xididku meel cidhiiriya soo galo yani cidhiiriga wuu ka dhex bixi karaa, wuu isdhuubaa. fahmaysaa? laakiin kan mar walba sidaas u taagan yahay, waa rigid, yani waa marna dhinacna wuu adag yahay, sidaa uu u samaysan yahay ka dhabo. marka madax buu usoo gelaya xididkii. markuu soo galo waxa weeyaan lama jaan qaadayo cabirkii xididka, yani dhexroorkiisii, diameterkiisii, wixii sidaasuu kusoo gelayaa. haddii marka ay isku soo gaaraan kuwo kale, wuu isxanibaya, yani wuu isfulfulayaan. halkan waxaa aragtaan tusaalahaan xidid caadiya oo unugyada ku jira ay caadi yihiin, ay caafimaad qabaan. markay xididku kala tusaalahaan uu kala dhambalmo oo xididadu dee waa aragtay way kala leexleexdaan, xididkii weynba intaasoo xidid baa kasii dhalanaysa. marka xididkanoo kale tusaale ahaan caadi buu dhiigga u raacaya, yani unugyadana caadi bay xididada u raacayaan, qulqulka dhiiguna caadi u socdaa. waxba xanibaad iyo isbaarooyin la isu dhiganaya waxba ma jiraan, waa meel amni ka jira weyaan. halkan waxaad arkaysaa in unugyadii cudurka sickle cell loo yaqaan, in ay halkan markay yimaadeen ay la falgeli waayeen ama la jaan qaadi waayeen qaabkii xididku u samaysnaa. sida awgeed way isbuurteen, way issoo fuuleen, sida xoolaha la horeeyo kale. dee xooluhu caqli badan yani ma lahan, oo ay ku kala gartaan tusaalahaan neefkan ha soo cabo, markuu soo cabo aadna gaaraysaa. laakiin markay harraadan yihiin ama ay ooman yihiin, de way yaacayaan. waxaa laga yaabaa adiga laftirkaaga tusaale ahaan inay ku jiraanba. sida awgeed halkan dhiiggii soconayay yani mid baa xanibay halkan, haddana mid kalea soo gaaray, isla markiiba waxay noqotay isbaaro caadiya noqotay. marka checkpointiga halkan ka dhacay, ama isbaaradan ama xanibaadan halkan ka dhacday, waxay sababaysaa in aanu dhiiggiisi la doonayo u socon. isla markaa ay taasi dhacdo, marka difaacii jirka ee aan soo sheegaynay, khaasatan unugyada cadcada dhiigga, ayaa weerar isla markiiba kusoo qaadaya oo isku dayaya inay dilaan. yani way laynayaan, unugyadan ay laynayaan. maxay u laynayaan? waxay diidayaan haddii dhiiggani xidhmo, haddii xididkani xidhmo oo dhiiggan uu xidhay, waxay noqonaysaa in xididkani dhammaan xubnihii uu quudinayay, ilan dhiigu meel buu u socdaa, dhammaan xubnihii uu quudinayay inay dhintaan. si marka looga gaaro dhimashadooda inaanay dhiman oo xubnaha loo badbaadiyo, yani waxay isku dayaya difaaca jirku wuxuu isku dayayaa inuu unugyadan meesha ka saaro. iyagii buu laynayaa marka, si unugyada kale ay u gudbaan. waa cudur halistiisa leh runtii. unugyaduna sidaas isu bedelaan marka duumada qofka ku dhacdo kale, iyo marka cudurkani jiro. waan arki doonaa marka waxaa ka mid ah cudurrada noocyada dhiigyari ay keentay cudurka sickle cell, oo ah unugyada qalloocan, sida uu qofku yani ku dhalanayo iyadoo unugyadii ay sidaa yihiin. dhiigyarida waxaa iyaduna ka mid a cudurka dhiigyari ay keentay cudurka la yihahdo thalassemia. thalassemia mar labaad waa cunug sida sickle cell, waa cudur sida sickle cell oo kale la dhaxlo, yani waalidka waa ka dhaxli kartaa. marka waxa weeyaan wuxuu inta badan cudurkani weeraraa oo dhibaato u geystaa waxaa la yidhaahdo hemoglobintu waxaan sheegnay inay tahay boqolkiiba 95 waa brotiin boqolkiiba 95 iyo ka badan uu ka kooban yahay dhiigga cas. dhiigga cas ayaa wuxuu ka kooban yahay brotiin la yidhaahdo hemoglobin. waana soo sheegnay hemoglobintu shaqadiisu inay tahay inuu jirka gaarsiiyo oxygeenta, kana soo xambaaro, kasoo qaado qashinka carbon dioxide-ka ama carbon laba oxide-ka. marka cudurkan thalassemia wuxuu khalkhaliyaa ama dhaawac u geystaa hemoglobintii ku jirtay dhiigga cas, shaqadeedu ahayd inay xambaarto oxygeenta, ay kasoo qaado carbon dioxide-kana ay kasoo qaado jirka. taasuu khalkhaliyaa, markaana isla sidaasoo kale yani unugyadii casaasaa si dhaba uma shaqaynayaan, maadaama hemoglobintii
ay jiran tahay oo cudurkan thalassemiyadu uu ku dhacay. Sidaa awgeed hemoglobintu maadaama ay jiran tahay ma qaadi karto oxygentii. haddaanay oxygenta qaadi karinna waxa weeyaan dee qofkii anemia ayaa ku dhacaysa, yani unugyada dhiigga asaasa ma shaqeynaya macnaha. halkan marka waxa weeyaan tira ahaan maaha, laakiin taya ahaan shaqadoodii ma gudan karaan. nooca kale ee dhiigyarida waxa weeyaan waa dhiigyarida loo yaqaano aplastic. waxaa loo yaqaanaa aplastic anemia. waa nooc iyaduna halisteeda leh oo macnaheedu yahay in waa cudur runtii ama dhaawac soo gaara xaruntii dhammayd ee lagu sameynayay dhiigga oo aan soo sheegnay oo ah dhuuxa lafaha. dhuuxa ayaa lagu sameeyaa unugyada dhiigga. haddii marka dhuuxii uu jiran yahay ama dhaawac soo gaaro waxaa ka dhalanaysa dhiig yari, waxaa ka dhalanaysa yani inaan dhiiggii samayn karayn, inaan dhuuxii samayn karin unugyadii dhiiggii la doonayay. kadibna waxaa ka dhalanaysa dhiig yari. astaamaha dhiigyarida maxaa ka mid ah? astaamaha dhiigyarida waxaa ka mid ah daal iyo tabar la-aan joogta ah. waxaa ka mid ah yani wadna garaac ayaa ka mid ah. waxaa ka mid ah wareer iyo damaad, yani qofku iska dawaqsan yahay oo iska wareeraya. tusaale ahaan markaa jiiftid oo kale haddaa kacdid isla markiiba waxaad dareemaysaa tusaale ahaan ama dhacdaa, yani waa inaad gidaar qabsatid oo kale. hadda sidaa sawirka ka arkaysaan wadna garaac, yani wadna garaac joogtaa baa arkaysaa. waa isleedahay niyo wadnuhu ama soo baxaaba mararka qaarkood, waxay ku xiran tahay laakiin wadna garaacan yani hadba dhiigyaradooda heerkay joogto. marka mararka qaarkood wuu iska ladifan yahay, mararka qaarkoodna wuu dhib badan yahay. waxyaabaha kaloo ka midka ah astaamaha lagu garto dhiigyarida waxaa ka mid a qofka faraha iyo cagaha, yani xubnaha jirka intiisa kale oo ka fog, yani koorka adiga jirka, yani ubucdii iyo wadnihii iyo waxa way ka fog yihiin faraha iyo luguhu. marka faraha iyo lugaha ayaa waxaa qofka kasoo yani wuxuu dareen way ka qabow yihiin yani jirka intiisa kale. sababta keenaysana waxa weeyaan marka dhiigyari timaado hanaanka rabbaaniga ee jirkeenu u samaysan yahay waxa weeyaan in dhiiggan yaraaday jirku wuu dareemaya. marka maadaama uu dareemay in dhiiggii yar yahay oo aanu dhammaan jirka ku filnayn, si dhaba xubnihii jirka u wada gaari karin, wuxuu isku dayayaa wadnuhu inuu dhiiggan uu hayo intan yar uu u qaybiyo xubnaha ugu muhiimsan ee jirka sida maskaxda, wadnaha, sambabada, keliyaha, yani oo uu ka ilaaliyo qoladan ku suququlinaya, yani qoladan wuu ka yar ilaalinaya. wuxuu leeyahay idinku waa noola xoogaa waa joogi kartaan, bal qofkan de haddii ama wadnuhu istaago ama sambabada wax ka gaaraan ama maskaxda dhaawac ka gaaro waa halis. sidaa awgeed xubnaha waaweyn oo qofka jirkiisa ku jira ayuu badbaadinayaa maadaama ay yihiin xubnaha ugu muhiimsana laga dhiman karo. marka kuwaanu kasoo qaadayaa dhiiggii, wuxuu ku celcelinayaa kuwa muhiimka ah. astaamaha kale ama astaamaha ayaan oranaya maxaa la yidhaahdaa sumadaha muuqan kara, yani waxa muuqan kara waxaa ka mid ah astaamaha muuqan kara waxaa ka mid ah midabka qofka oo isbedela ayaa ka mid noqon kara. oo waxaa arkaysaa tusaale ahaan waxaa laga yaaba dhakhtar markaa u tagtid oo kale inuu ishaada yani hoos u dhigo oo u arko, yani tusaale hoos u dhigo waxaan uga jeeda yani inuu ishaada eego, yani indhaha inuu eego. oo tusaale ahaan xuubkan isha ku dahaaran ee ugu sarreeya waxaa la yihahdaa conjunctiva. midabkiisu sida caadiga marka qofka aanu dhiigyari qabin wuu cas yahay. qaybtaa ugu dambaysa xoogaa waa iska yar payl, way yar caddahay, laakiin halkan aan hadda idin tusayo yani way cas tahay sida caadiga ah. hadduu qofku anemia qabo ama dhiigyari ay jirto, haddii dhiigyari jirto halkan way caddahay, waa arkaysa halkan aad bay u caddahay markii la barbar dhigo halkan. sidaa awgeed halkan waxaan ku magacaabnay qof ay dhiigyari hayso, halkan waxaynu nidhi qof aan dhiigyari haynin. midabka qofka marka yani tusaale ahaan waxay meelaha kale ay kartid waxaa kamid inuu isbedelay yani faraha, hadday tahay baabacooyinka ama calaalaha iyo hadday tahay dhabarka gacmaha oo kale. waxaad dareemi kartaa qofkan yani mataqan inuu waxaa moodaysaa maanta dhan biyo kula jiray faraha, wuu dhatsan yahay. yani waad dareemaysaa in yani casaankii caadiga ah ama guduudkii uu ka maqan yahay, dhiiggii inuu ka maqan yahay meesha. marka yani ka maqan yahay waxaa uga jeeda inuu ku yar yahay de. marka midabkaa lumay waxay ka dhigan tahay astaan dhiigyari.
dibna dilaac ayaa ka mid ah ama bishimo inay qofka hareeraha ka dilaacaan oo arkaysa sawirkan yani halkan ay dilaacsan yihiin waa qayb ka mid ah astaamaha lagu garta dhiigyarida waxaa ka mid ah tusaale ahaan himadda qofka oo yaraata yani himadda qofka oo yaraata waxaan oga jeedaa tusaale ahaan qofka sida in fahmada waxbarashadu ay ku adkaato waayo oxygenka ugu badan waxaa isticmaala waa maskaxda marka haddii aanay maskaxdu helin oxygen ku filan dee waxay saameynaysaa waxbarashadaadii ahmiyadaadii waxbarashada u haysay ama shaqooyinkii kale nolol maalmeedkaa la xiriiray fahmadii wixii o dhan bay yani saameyn ku yeelanaysaa waayo dee qof waxaa tahay dhiigyari hayso maskaxdaadii maskaxdii yani waxay quudan jirtay oxygentii iyo si dhaba uma gaarayaan yani dhiig ku filan maskaxdii meerayso waxyaabaha kaloo ka mid a astaamaha dhiigyarida waxaa ka mid ah jamashada ama cunistaba dhuxusha ciidda iyo nuuradda khaasatan yani dumarka uurka leh way jecel yihiin markii dhiigyari hayso khaasatan dhiigyarida loo yaqaano iron deficiency ama dhiigyarida ay keento yaraanta xadiidka waxaa runtii xusid mudan in dumarka uurka leh iyo ilmaha yaryariba ay aada ugu nugul yihiin yani dhiigyarida oo ay dhiigyaridu aada ugu dhacdo waayo hooyada uurka leh dee qof baa ku dhex koraya oo ibida keligeed ayaa waxay u baahan tahay yani intaasoo kharash yani kharash waxaa uga jeedaa yani inay mineraallo fara badan iyo brotiino fara badan ay jirkii hooyada ka isticmaasho si ay u korto waa ebida yani ama mandheerta sida dadka qaarkood u yaqaanaan ebida caadiga maxaa la yidhahdaa ilmaha yani markay ku abuurmayaan hooyada ku dhex samaysata uurka ama ilma galeenka oo yani ka caawinaysa ilmaha yani inay u gudbiso nafaqooyinka caadiga ah ee jirka hooyada yani soo gaarayay inay ilmaha usii gudbiso si uu ilmuhu u noolaado sidaa awgeed hooyada maadaama lagu dhex korayo yani ironta ama birteedu hoos bay u dhacdaa ilmaha yaryar maxaa birta ayagana hoos u ridaya waxaa u ridaya oo anemiyada u keenaya khaasatan qaybta hoos dhaca birta waxaa keenaya dee ilmaha yar wuu koraya isagii wuu korayaa wuxuu maanta o dhan buu ordayaa maxaa la yidhahdaa isha wuu ciyaarayaa marka energy aad u fara badan baa ku jira ama tamar aad u fara badan buu isticmaalayaa marka waa muhiim yani in haddii aa ilmahaaga ku aragto astaamaha aynu soo sheegnay sida caajis waxbarasho nacayb ama waxbarashadii uu ka si u diidan yahay yani u baxayn firfircoonidii ilmaha ku taqaanayo yaraata yani waa muhiim inaad dhakhtar u geysid dhakhtarka carruurta khaasatan ceebna ma lahan inaad dhakhtarka ku tiraado dhakhtar bal dhiigyari ka eg inay hayso ilmaha yar inankan yar ama inantan yar ama hooyaduna waa muhiim yani mataqaana inay iyaduna dhakhtarka tagto haddii ay uur qaadayso mararka qaarkood waxaa fiicanba intaan uurkaba la qaadin inuu qofku isu diyaariyo inuu uur qaadayo og yahay nafaqooyinkiisa iyo jirkiisa caafimaad ahaanba si uu xataa u badbaadin karo ilaahay baa wax badbaadiya laakiin yani si uu xataa uga taxadari karo yani caafimaadka ilmahaaga ee mustaqbalka waayo adigoo nafaqadarra ku hayso haddii ilma calooshaada galaan dee waxay u badanta ilmaha inuu xanuuno ku dhasho ama isagiina uu hadhow koritaankiisii iyo maskaxdiisa ay saameyn ku yeelato saameyn taban waxaan uga jeedaa waa saameyn yani negative maxaa sababa dhiigyarida maxaa sababa dhiigyarida waxyaala aada u fara badan baa sababa sida dhuuxa lafaha oo ah halka lagu sameeyo unugyada dhiigga oo dhaawac soo gaaro yani bone marrow disorders haddii dhaawac soo gaaro dhuuxa lafaha dee saameyn bay ku yeelanaysaa yani dhiiggii qofka khaasatan unugyada dhiigga ee cascas haddii marka uu samayn kari waayo dhiigyari baa ka dhalanaysaa haddii dhuuxu yareeyo macnaha unugyada dhiigga cas tusaale ahaan waxaa ka mid ah anemia loo yaqaano aplastic anemia waxaan mana inaan soo xusay oo qofka ku dhacaysa oo macnaheedu yahay in dhammaan unugyadii dhiigu saddexdii nooc aan soo sheegnay hadday yihiin kuwii difaaca hadday yihiin oo unugyada cadcad ah hadday yihiin kuwii oxygeenta unugyada dhiiga cascas hadday yihiin kuwii xinjirinta iyo in dhiigga xinjireeyaan dhammaantood hoos u dhacaya marka mararka qaarkood waxaa lagu magacaabaa anemiyada hoos u dhaca dhammaan unugyada dhiigga
si kale haddaan u ihahdo afka yani luqadda caafimaadka waxa lagu yihahdaa pancytopenia. marka waa mid ka mid ah waxyaabaha sababa dhiigyarida. waxyaabaha kaloo sababi kara dhiigyarida waxaa ka mid ah cudurrada kelyaha ee raaga, yani chronic kidney disease. waayo kelyuhu waxay sii daayaan hormoon loo yaqaan erythropoietin oo ka mid ah hormoono koox ah oo dhuuxa lafaha yani amar siiya inuu sameeyo unugyada dhiigga cas. haddii marka aad kelyaha ka jiran tahay yani ama ha ahaato caabuq aadan ogeyn oo wax badan ku hayay, ama ha ahaato dhaawac kale oo mataqana physicala oo trauma tusaale ahaan dhaawac caadi oo soo gaaray, yani haddii sidii doontaba ahaatee yani kelyaha uu xanuun raaga uu ku jiro, ma helayaan yani awood uma yeelanay inay sameeyaan hormoonka aan sheegnay ee la yidhaahdo erythropoietin. erythropoietinku marka haddii uu yaraado ama kelyuhu ay samayn kari waayaan, dhuuxii ma helayo amar ah inuu unugyada cascas sameeyo. sidaa awgeed dee waxba uu iska seexanaya, waxba meesha halkaas iska joogaa, adigunbuu jawaabkaa sugayaa. ma aha hormoonkan keliya cidda yani amarka siisa dhuuxa, laakiin waanu mid ka mid ah yani koox hormoona ah oo dhuuxa siisa amarka ah inuu unugyo cascas sameeyo markii loo baahdo. yani sidaa awgeed ayaa cudurrada kelyuhu yani saameyn ugu leeyihiin anemiyada, maadaama aanay samayn karin brotiinkii amarka siinayay dhuuxa haddii ay xanuunsadaan. waxaa kaloo ka mid ah cudurrada qanjirka dhuunta ama thyroidka. halkan waa arkaysan yani mataqana qanjirka dhuunta, yani thyroid disorders baa loo yaqaanaa. thyroid disordersku marka waa cudurro yani ama isbeddel taban oo ku yimaada shaqadii uu qabanayay thyroidku. haddii marka uu hoos u dhaco yani hormoonka thyroidku oo qanjirkani soo saaro, waxaa ka dhalanaysa sidii kelyuhuba sidii kelyahan kusoo sheegnay yani in dhuuxa uusan helayn amarkii ahaa soo saaritaanka ama samaynta unugyada cascas. waxaa iyaduna ka mid ah waxyaabaha sababa hoos u dhaca waxyaabaha sababa dhiigyarida hoos u dhaca vitaminka loo yaqaano B12. marka wayna soo xusnima umalnaya B12 yani vitamin B12 ama vitamin B12 haddii uu hoos u dhaco ama irontu ay hoos u dhacdo, iyo xadiidkan ka wada ironta markaan leeyahay, labaduba yani mataqaanaa saameyn lixaad le bay ku yeeshaan runtii dhiigyarida. sababto waxa weeyaan aad bay waxay uga qayb qaataan samaynta dhiigga unugyada dhiigga cas. samaynta unugyada dhiigga cas ay qayb lixaad ay ka qaataan. hadday marka hoos u dhacaan waxaa hoos u dhacaysa unugyadii dhiigga casa, markaana waxaa ka dhalanaysa anemia ama dhiigbax yani dhiigyari. hoos u dhaca xadiidka waan soo sheegnay. waxaa ka mid ah inuu dhiigbaxa ayaa ka mid ah waxyaabaha keena dhiigyarida, oo qofku haddii uu dhiig baxo sida dhaawac soo gaaray dhabar furanka dumarka wax kasoo tilmaanay, yani dhiiggii caado istaagi waaya muddo ka badan 7 beri, ama yani mataqaanaa dhowrka beri uu soconayay si xawli ah ku socda, waxaasna waxay sababaysaa dhiigbax. waxaa iyaduna ka mid ah waxay sababaysaa anemia kooda. waxaa ka mid ah waxyaabaha sababa dhiigyarida boog calooleedka ama bleeding ulcers or polyps. boog calooleedku waa nabar ama boog ku yaalla caloosha. boogta calooshuna dee waxay sii daysaa dhiiggaasoo raaca saxarada, waana sababta inta badan dhakhtarkaagu ama dhakhtaradaadu ay saxaro kaaga qaadayso marka tusaale ahaan lagaaga shakiyo ama lagugu arko dhiigyari aan la garanayn waxa sababay. nooca kale waxyaabaha kale ee sababi kara dhiigyarida waxaa ka mid a cimri degdeg ku dhaca unugyada dhiigga cas. unugyada dhiigga cas yani waa unugyada xambaaraya oxygeenta. haddii marka iyagii ay dhimanayaan oo ay ka dhimanayaan yani cimri degdeg ku dhacayo, ay ku dhimanayaan muddo ka yar muddadii ay noolaan lahaayeen oo cimrigoodu gaarsiisnaa, waxay sababaysaa yani in ay dhiigyari timaado. marka waxaa loo yaqaanaa hemolytic
anemia. Hemolytic anemia marka sidee u dhacdaa? waxay u dhacdaa yani cudurraa jira saameeya dhiigga sida yani dhiigga cas sida aan soo sheegnay sickle cell oo kale, malaariyada oo kale, ama duumada. waxaasna waxay sababaan in unuggii casaa ay weeraraan ama haykalkiisii bedelaan ama proteinkii mataqaanaa hemoglobin oo unugga dhiigga cas ka koobnaa ay khalkhaliyaan. markaana markay arkaan in khalkhalka noocaas uu jiro, isla markiiba difaaca jirka weeraraya, meeshii wuu ka banaynaya, marka wuu ka saaraya. markuu meesha ka saarana dee unugyo badan baa dhimanaya iyagoo aan la gaarin cimrigooda, iyagoon cimrigooda dhamaysan bay dhimanayaan. markay dhintaanna waxay sababaysaa dhiig yari, ileen tira ahaan bay hoos u dhacayaan. sida caadiga 120 casho ayay noolaadaan unugyada dhiigga cas, kabacdina waa la bedelaa, kuwa cusub ayuu dhuuxu sameeyaa. haddii marka waxay 120 casho ay ka hor dhintaan, waa dhiig yari, waayo kuwii lagugu talagalay inay 120 casho ku noolaatid dee hore bay u dhintaan. cudurrada kaloo keena dhiig yarida ama wax sababa waxaa ka mid ah duumada, waayo duumadu unugyada cascas ayay weerartaa, kadibna durbo way dhintaan. waa sidii mataqaana sickle cell oo kale, cudurka sickle cell oo kale. marka waa isku farsamo bay maraan, isku hanaan bay u laayaan yani unugyada dhiigga cas. sidee lagu ogaan karaa dhiig yarida? jawaabta ugu fudud aan ku jawaabi karna waxa weeyaan, dhiig qaad ayaa lagu ogaadaa in aad qabto dhiig yari iyo in wax inaadan qabin. yani inaad dhiig yari qabto inaadan qabin waxaa lagu ogaan karaa waa in dhiig lagaa qaado. waxaana la eegaa heerka hemoglobinta. hemoglobinta waan soo sheegnay waxay tahay, mar kale waa proteinka uu ka kooban yahay, ay ka kooban yihiin unugyada dhiigga casaas. marka hemoglobinta heerkeeda la eegaa. sida caadiga marka heerka hemoglobinta waa marka ragga la joogo waa 13.5 ilaa 16.6 garaam halkii decilitirba. haddaa litir ahaan u eegaysidna 10 baa ku dhufanaysaa, waa 166, waa 135 ilaa 166 macnaha. dumarka marka la eegayo waa 12 ilaa 15 garaam halkii decilitirba. halka marka dhiig yarida yani la eegayo ama dhiig yaridu jirto, ragga wuxuu hoos uga dhacaa 13.5 garaam halkii decilitir, dumarkana wuxuu hoos uga dhacaa 12 garaam halkii decilitir. marka waxaa arkaysaa yani inay kala duwan yihiin. marka dhiig yari jirto waa halkana eegaysaa. marka dhiigu caadiga yahay, hemoglobinta dhiigu jirta ay caadiga tahay, halkana eegaysaa. marka runtii waxaa jira xaalado gaar ah oo heerarkan soo sheegnay yani aan ku tilmaamin inay caadiga yihiin, ay yaraan karaan ama ka badan karaan intii la doonayay. sida tusaale ahaan mararka yaraan karaan oo kale waxaa ka mid ah hooyadu hadday uur leedahay, yani hemoglobinteedu way ka yartahay intii la doonayay, yani 12 way ka yartahay. dadka waayeelkaay oo kale way ka yartahay hemoglobintu intaa. qofka ku hawlan tusaale ahaan isboortiga ama ka qayb qaata yani tartamada adag sida dabaasha, orodka, baaskil wadida, barafka orodka, waxyaalaha noocaas yani aadka yani isboortiga aadka u adag ka qayb qaata ama waqtiga faraha badan ku bixiyo tusaale ahaan, ama isagu mihnad ka dhigtayba tartamada noocaas ka qayb gala, yani hemoglobintiisu way ka yartahay runtii hemoglobin yani xaddigan caadiga aan soo sheegnay. xaaladaha ay heerarkani ka badan karaan intii caadiga ahayd waxaa ka mid ah dadka sigaarka caba oo kale, hemoglobinta hadda dhiig ka qaadid oo kale hemoglobintooda way ka sarreysaa yani intii caadiga ahayd. waxaa ka mid ah dadka ku nool meelaha ka sarreeya dhulka, sida buuraha dushooda oo kale, ama xataa haddaa buur iska fuushid yani waad dareemaysaa adigu waa neeftuureysaa, waayo oxygen yar baa kusoo gaaraysa. qofka ku hawlan waxyaabaha mataqaanaa kaloo keena yani in hemoglobintaada kor u kacdo waxaa ka mid ah ama ay ka sarreyso xaddiga caadiga ahaa, waxaa ka mid ah dadka qaba xanuunada sanbabada iyo haniyaha wadnaha, yani heart valves. marka laga hadlayo baaritaanka dhiig yarida, waxay bahda caafimaadku u qaybiyaan 3 nooc iyadoo loo eegayo halbeeg loo yaqaan MCV ama mean corpuscular volume. mean corpuscular volume yani waa
waa halbeeg lagu eego cabirka iyo haykalka unugyada cascas. markii halbeegan la sameeyo dhiigga inta la qaado yani la eegayo natiijadu waxay noqotaa 3 nooc mid un. waxay noqdaan unugyadaasi in unugyadu ay ka yaryar yihiin cabirkoodii, waxaana loo yaqaanaa microcytic anemia. mid labaad waxa weeyaan in unugyadu ka waaweyn yihiin cabirkoodii oo waxaa loo yaqaanaa macrocytic anemia. midda ugu dambaysana waxa weeyaan in unugyada cabirkoodii uu caadi yahay oo aanay waxba iska bedelin. waxaa laga yaabaa mararka qaarkood qofku inuu isweydiiyo microcytic anemia, macrocytic anemia, normocytic anemia. yani tan microcytic baa lagu magacaabay, unugii wuu yaryahay, uu ka yaryahay cabirkiisii, kan cabirkiisii uu ka weyn yahay, kan waa meel dhexe. tan waaban garanay microcytic maadaama unugii uu yaraaday yani anemia ha lagu sheego, laakiin maxaa labadan loogu tilmaamay anemia? waa su-aal runtii aad u wanaagsan qofku isweydiin karo. laakiin marka halbeegan la eegayo 3dan nooce aan sheegnayba waa dhiigyari weeyaan, cabirku siduu doonaba ha ahaado. dhibkuna xiriir lama lahan cabirka keliya, yani marka dhiigyari laga hadlayo cabirka keliya looma eego, laakiin iyagoo unugyada yani caasi cabir ahaan ay saxan yihiin ayay tiro ahaan yaraan karaan. marka waxaa laga yaabaa tusaale ahaan markuu macrocytic yahay inay tiradii yar tahay, laakiin ay iska balbalaaran yihiin ayagoon waxba la joogin, wax badan hayn yani. waxaa laga yaabaa mararka qaarkood marka normocytic la leeyahay in sayskii caadiga yani waa caadi, unugii intiisii buu leegyahay, laakiin dee tiro ahaan buu ka yaryahay intii. marka yani sax ahaanshaha cabirka iyo shakligooda keliya kama dhigna inay bad qabaan yani. waa hagaag, tan waa su-aasha dadku isweydiin karaan oo ka jawaabnay waan filayaa. sidee loo daweeyaa dhiigyarida haddaba? waa su-aal iyaduna muhiim ah, waan isleeyahay waa su-aalaha ugu muhiimsan yani qofku isweydiinaya. daweynta dhiigyaridu waxay ku xiran tahay nooca dhiigyarida ee ku haysa iyo heerka ay joogto dhiigyaridu. marka waa muhiim yani dhakhtarku inuu qofku dhakhtar u tago, dhakhtarkuna markaad ogaado cudur aqoonsi sameeyo, ogaado dhiigyari inay jirto. markuu dhiigyaridu ogaado inay jirtana, maadaama ay noocyo fara badan u qaybsanto dhiigyaridu, waa in dhiigyarida markaa la xaqiijiyo noocay tahay markii la ogaado markaa waxaa lagu siinayaa dawada ku habboon iyo xilliga ku habboon. sababta waxaan sidaa u leeyahay waxa weeyaan yani casharkani waa hordhac, marka kama hadlayno dhiigyari khaasa. dib baan uga hadli doonaa mid walba iyo sababaha keena iyo sida loo daweeyo iyo maxaa la yidhaha sida looga hortago iyo waxaas o dhan. laakiin maadaama casharkan hordhac yahay, mar walba dawadiisa waxaan u eegaynaa nooca ay dhiigyaridu tahay, si guud baan uga hadlaynaa. tusaale ahaan marka qaarkood waxaa dhici karta dawada dhakhtarku siinayo dhiigyaridu yani inay keentay dhiigbax kugu yimid oo ama shil ka yimid ama hooyo maxaa la yidhaahdaa umushay oo kale oo dhiig baxday. markaas kale waxa weyaan dhakhtarka in la dhigo oo dhiig lagu shubo. laakiin marka ay hoos u dhacdo xadiidkaagii oo kale, waxba dhiig shubid uma baahnid. waxaa la eegayaa in anemiadaas la xaqiijinaya ama dhiigyaradaas la xaqiijinaya, kabacdina waxa lagu siinayaa xadiidka lagu qoraya ama kiniin ahaan ama sharoob ahaan. marka dhiigyaradu mar walba waxay ku xiran tahay nooca ay tahay in la xaqiijiyo, in horta dhiigyari marka hore la ogaado inay tahay, kadibna la xaqiijiyo ma cudur kalaa ka dambeeya oo waxaan dhiigyari keliya ma ahane cudur kalaaba ka dambeeya. mararka qaarkood waa anigii sheegaynaa cudurro kalaa jira oo aana kaa caawinayn yani inaad qofka siisid yani inaad hadba dhiig ku shubtid keliya aanay ku filnayn, dawooyin kale iyo si kale in loola tacaalo loo baahan yahay. marka intaasaan kusoo gabagabaynaa casharkeeni maanta. waad mahadsantihiin 100%. haddii marka aad uxun ka faa'iiday, fadlan la wadaag saaxiibada. anuna waa kaaga mahad celinaynaa, 100% baan kaaga mahad celinaynaa daawashadaada iyo la wadaagida aad saaxiibada la wadaagsa intaba. Soomaali midna waxaan ka codsanaynaa yani inaad la soo wadaagtaan mawduucyada ku saabsan caafimaadka aad jeceshihiin inaan idinla wadaagno ama idin soo gudbino. waad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.